waxaana wanaagsan daawadayaal waa mar kale iyo barnaamijkeennii xogta dahsoon oo aynu daaha kaga qaadayno qaabka ay suuragalka ku noqotay inuu ubaxu ka soo dhex baxo bacaha xashiishka dhexdooda oo ay shacabkii kuuriyada koonfureed ee saboolnimada ku caanbaxay ay haatan u yeeshaan dhaqaalaha afraad ee ugu wanaagsan qaaradda aasiya sidoo kalena ay helaan nidaamka waxbarasho ee ugu wanaagsan caalamka oo dhan ku soo dhowaada barnaamijka. dhammaadkii dagaalkii labaad ee dunida sannadkii 1945 kuuriya waxay madax bannaanadeeda ka qaadatay dowladda jabaan oo gumaysanaysay muddo 35 sannadooda laakiin waxaa xilligaa loo qaybiyey laba qaybood oo kala ahaa waqooyiga iyo koonfurta iyadoo waqooyiga oo qaadatay nidaamkii hanti wadaagga ay gacanta ku qabteen waddamadii mabda'a aaminsanaa ee uu midowgii soofiyeti horkacayey iyo koonfurta kuuriya oo qaadatay hanaankii hantigoosiga ayna taageerayeen dalalkii hantigoosiga ahaa ee caalamka oo ay maraykanku hogaaminayeen iyagoo kadib dagaalkii sokeeye oo labadaa dhinac dhex maray muddo 3 sannadooda oo mid waliba ugu dambayntii noqday waddan gaara waana dagaalka gacanka kuuriya oo ay quwadaha waaweynina si dadban ugu jireen xilliyada qaarkoodna si toosaba uga qayb qaadanayay waana dagaalkii galaaftay nolosha 5 milyan oo ruux xilligaasi waa markii ay dhalatay dowladda kuuriyada koonfureed iyadoo dhammaan kaabayaashii nolosha ee kuuriya lahaydna ay raaceen dhankii waqooyiga sida warshadihii iyo godadkii macaalinta laga qodayey oo ay u dheerayd 85% xarumihii laga dhalin jiray quwadda tamarta taasoo keentay in dowladdii dhalatay ee koonfurtu ay noqoto xilligaa mid itaalkeedu kooban yahay wakhtigaana waxaa loo haystay inay tahay mid ka mida dalalka ugu saboolsan dunida oo dhan iyadoo haweenka dalkaasi ay iibin jireen timahooda oo waddamo kale loo dhoofin jiray si ay haweenkaasi u dabbaraan nolosha qoysaskooda mana jirin khayraad fara badan oo lagu ogaa dhulka kuuriyada koonfureed shacabkeeduna ma lahayn tacliin la xusi karo iyadoo 90% dadweynaha waddankaasi ay noloshooda ku tiirsanayd caawimada uu maraykanku siinayey madaxweynihii xilligaasi ee koonfurta kuuriya Lee Zoman waxa uu qaaday 2 olole oo ballaaran oo kala ahaa hagaajinta wax soo saarka beeraha iyo in dadka oo dhan waxbarashada la gaarsiiyo iyadoo tirada dadka raacanaya tacliinta sarana ay 10 jeer laab kor u kacday 36% carruurtii yaryaraadna ay bilaabeen in iskuullada la soo qoro isla dhammaadkii kontomeeyadii ee qarnigii ina dhaafayna waxaa suuqyada shaqada ee dalkaasi soo galay dad aqoon-yahanaa si degdeg ah se looma xallin dhibaatadii dhinacyada badan lahayd ee dalka ka jirtay maadaama wax soo saarkii beeruhu aanu keligii ku filnayn in hanti laga sameeyo 46% dadweynihii waddankuna waxay sii ahaayeen kuwa ku nool xaalad ka hooseysa heerka saboolnimada laakiin markii la gaadhay sannadkii 1961 qiyaasaha saboolnimadu waxay noqdeen kuwo xasuusta dadka uun ku sii harsanaa laakiin aan saaxadda dalka lagu arki karin waana sannadkii 61 oo dalka ka dhacay inqilaab militari oo hoggaankiisii sabab u noqday inay ummaddii waddankaasi ka baxdo noloshii saboolnimo una tallowdo marxalad hantiilanimo hoggaamiyihii inqilaabka Mr. Bag oo sifada madaxweynenimada qaatay waxa uu yeegleelay barnaamij dhaqaale kobcina isagoo sameeyey golo qorshayaasha dhaqaale dejinaya taageerana siiyey howlaha amniga maaliyadeed ee bangiyada dalka ku yaalay jawi dhiirigelineedna u abuuray warshadihii yaryaraa si ay u kordhiyaan wax soo saarkooda iyadoo hadafka la tiigsanayaana uu ahaa in la hirgeliyo koboc dhaqaale oo gaadhaya 7% muddadii 4 sannadood ahayd ee u dhaxaysay sannadihii 1962 ilaa 1966 waana ku talagalkii ay saaxiibadoodii maraykanku xilligaa yaraysteen ee ku sifeeyeen riyooyin aan meerqab ahayn laakiin wixii reer kuuriya xaqiijiyeen ee gaadheen waxa uu ahaa mid ka sarreeya riyooyinkii dhabta ahaa ee maraykanka laftooda isagoo muddadii lasii qabsaday ee 4 sannadood ahaydna uu kobacii dhaqaaluhu koru dhaafay in ku dhow 9%. si kastoo dadaalka kuuriyada koonfureed oo caalamka uga yaabiyey xilligaa haddana iyagu halkaa iskumay taagina waxa ay sii laban laabeen dadaaladoodii iyo shaqadoodii waxaana dhacday inay sannad walba wax soo saarka warshaduhu kor u kacaan 15%. xaddiga badeecadaha dibadda loo dhoofinayaana uu sannadkiiba sameeyo kor u kac gaadhayay 6%.
madaxweyne Park waxa uu ahmiyadda ugu weyn siinayay xirfadaha dhanka farsamada ee tayeysan si ay koonfurta uga dhigo dal warshad leh oo la tartami kara waqooyiga Korea. taa darteedna waxa uu xiriirkii diblomaasiyadeed la soo ceshaday dowladda Japan si uu u xaqiijiyo ujeedadiisa labaad oo u sameeyo waxa ay Japan sameeysay xilliga ee horumarin ahaa. weliba isagoo ku tala jiray inuu ku hawlgalo kharash ka yar kii Japan isticmaashay kuna gaadho natiijada waqti aad u kooban. dhabahaan 2 sanadood ka bacdi xilliga oo ku beegneed 1968 Kuuriyada Koonfureed waxa ay soo saartay gaadhigeedii u horeeyay oo noociisu ahaa Hyundai. dhamaadkii 60meeyadiina shirkadda Samsung waxay noqotay shirkadda samaysa telefishinada heerka caalami ah ee ugu wanaagsanaa. waana xilligii la kulmiyay arrimaha awoodii dawladda oo la xoojiyay, warshadeyntii oo kor loo qaaday iyo wax soo saarkii beeraha oo la dhiirigeliyay. madaxweyne Park oo aaminsanaa inaanay dimuqraadiyaddu kaligeed waxba u taraynin bulshooyin baahan ayaa nidaamkiisii talisnimo sii cusboonaysiistay sanadkii 1972 xilligaas oo uu furay barnaamijkiisii horumarineed ee hanaanka warshadeynta culus, iyadoo waddankaasi noqday halka laga sameeyo maraakiibta ugu waaweyn ee caalamka isaga goosta. farsamaynta oo sanadkiiba uga soo xaroon jirtay dakhli gaadhayay $26 bilyan oo dollarka Mareykanka. waana Kuuriyada Koonfureed oo farsamaynteeda ay sameynayso shay kasta ay sabab u ahaayeen dadaalkii dowladooda iyo hal abuurnimadii shacabkoodu. dharaaraba nin haystaba saldano loogu soo dhigay madaxweynihii waddanka godka ka soo saaray waxaa sanadkii 1979 lagu dilay inqilaab militari oo horkacayay sarkaalkii ciidan ee Sholdon Wa, waxaana ka dhashay degenaansho la'aan siyaasadeed taasoo keentay hoos u dhac dhaqaale oo gaadhayay 6%. 10 sanadood ka bacdise waxaa dib soo laabtay kobocii dhaqaale ee dalkaasi iyo koritaankiisii joogtada ahaa. waana sanadkii 1988 oo ay Kuuriyada Koonfureed mar kale dib ugu noqotay hanaankii siyaasadeed ee dimuqraadiyadda. xilliga oo ay dhacday doorashadii u horeysay ee xor iyo xalaal ah wixii ka dambeeyay sanadkii 1960. sanadkii 1997 wadamada Aasiya waxaa ku dhufatay dhibaato dhaqaale taasoo wada jeeday dalalka ay ka mid ahaayeen Thailand, Philippines, Singapore iyo Kuuriyada Koonfureed lafteeda. xilliga oo ay ku kaliftay koonfurta Kuuriya inay $58 bilyan oo dollarka Mareykanka ka soo deymato banka adduunka. laakiin dhaqaalihii waddanku lahaa waxa badbaadadiisa sabab u noqday shacabkii dalka oo wadooyinka isugu soo baxay iyagoo ku deeqaya dahabkoodii iyo wixii ay adduun heli karayeen, waxaana ay dalkooda u ururiyeen balaayiin dollar. dhaqaale ururinta oo ay qayb ka qaateen xitaa shirkadaha yaryar ee ganacsigu, waxaana dawladdii jirtay u suura gashay inay 3 sanadood gudahood ku bixiso deyntii banka adduunka, iyadoo sanadkii 2001 badeecadihii ay koonfurta Kuuriya dibadda u dhoofisay uu uga soo xerooday dakhli gaadhayay $99 bilyan oo dollarka Mareykanka. xilligan aynu joognana Kuuriyada Koonfureed waa dalka saddexaad ee dibadda u dhoofiyay agabka isgaarsiineed ee ugu badan, agabka oo ku dhisan farsamo casri ah oo tayeysan. tartan adagna gawaarida ay farsamaysaa iyo telefoonada gacanta waxay ku leeyihiin suuqyada caalamka. horumarinna waxay ku samaysay qalabka adeegga internetka ee noociisu yahay Web Max Access oo ku siin kara internet xawaarihiisu gaadhayo 1 GB ilbiriqsigiiba. waana koonfurta Kuuriya oo haatan ah dalalka ugu dimuqraadiyadda wanaagsan, sanad walbana kaalimaha hore ka gala liiska shucuubta ugu hal-abuurka badan. waana dal leh military dhisan kaasoo farsameeya qaybo ka mid ah hubka culus, iyadoo dhaqaalaheeda kobcayaana uu sanad walba abuuro ilaa 300,000 oo shaqooyina. xilliganna waxyaabaha ay dibadda u dhoofiso waxa uu qiimahoodu gaadhayaa $560 bilyan oo dollarka Mareykanka ah sanadkiiba. qofka ugu mushaharka yar dalkaasina waxa uu bishii qaataa $1,500. mana aha shacabka Kuuriya kuwo inaga duwan, laakiin waxa ay soo mareen dhammaan caqabadihii aynu soo marnay sida colaadihii, degenaansho la'aantii, dib u heshiisiintii, dowladnimo dhisashadii iyo waxyaabihii ka dambeeyay inta. laakiin waxay ku fikireen inay iyagu gacmahooda sabab uga dhigaan ka bixitaanka mashaakilaadkaasi, waxaana ay noqdeen kuwo iyagu samaysta shay walba oo ay u baahan yihiin, hadday tahay hubka difaaca, maraakiibta, diyaaradaha, gawaadhida iyo taleefanada casriga ahba.